soomaali badan gaar ahaan rag soomaaliyeed ayaa waxay isaga kala imaanayaan wadamada qurbaha iyo sidoo kale wadamada kale ee ku hareereysan soomaaliya sida kenya iyo wadamada la midka ah iyaga oo ku sii jeeda safarna u ah wadanka morocco. haddaba wadanka morocco waxaa laleeyahay guurka ayaa waxaa loo raqiisiiyey rag badan oo ay soomaalidu ku jiraan iyagoo u arkay fursad weyn oo ay uga baxsan karaan sida ay sheegeen qaarkood guurka qaaliga ah ee soomaaliya. haddaba maxaa shuruudo ah oo raggaasi lagu xiray maxayse la kulmeen marka ay tageen gudaha wadanka morocco? wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan arintaas waxaa inoo haysa faadimo macalin oo igula sugan stuudiyaha. faadimo, muxuu yahay guurkan loo jabay ee morocco? saxnuuno sidaad sheegtay baraha bulshada waxaa kusoo badanayay rag badan oo morocco ku qulqulaya iyadoo maaragtay gabdhahana ay arintaas aada uga soo horjeedaan. marka laakiin waxaa la leeyahay in morocco la iska tago oo gabar moroccan ah la guursado ma ahan wax fudud. waa arintana waa maaragtay ka shaysaa inta baraha bulshada lagu arko. marka shuruudo dhowr ah la isku xiraa, qofkii kasoo bixi karaana gabar moroccan ah la siiyaa. marka shuruudaha la isku xiro qaarkood waxaa ka mid ah qofka in la weydiiyo in ayihiisa qofka uu yahay, maxaa caddayn ah in qofka aad sheegatay aad tahay, sidoo kale dembi horey inaad usoo gashay iyo in kalena waa lagu weydiinaya. marka qof walbo iska socda ma guursan karo gabar morocco u dhalatay. si walbo markaasi u doonayo waa inaad la timaadaa warqadda dhalashada rasmiga ah ee markaasi aan ahayn kuwa aad ka qaadatay dalalka aad horey isaga dhiibtay ee sharciga markaasi ku siiyey. nin walbo soomaali oo doonaya inuu gabar moroccan ah guursado waa inuu marka hore caddeeyo soomaalinimadiisa xitaa haddii uu haysto baasboor mareykan ah. marka soomaalida dhexdooda dabcan arintaas qaab kalaa la isugu xiraa oo qofka odayaashiisa inuu keensadaa la isku xiraa. marka laakiin hadda waxaaba lagaaga baahan yahay soomaalinimadaada laftirkeeda inaad maaragta caddeyso. waxaa kaloo qofka looga baahnaanaya warqad dembi la-aan ah in maaragta aad kasoo heshid oo aad ka keentid dalka aad ka timid ee aad ku nooleyd. tan marka waxaay ka dhigan tahay in qof tahriib amaba sharci darro ku galay uusan guursan karin gabar u dhalatay morocco. kaas waa sharciga koowaad. waxaa kaloo qofka laga rabaa ninka soomaaliga ah warqad caafimaad qabka ah. shuruudaha muhiimka ah ayay ka mid tahay oo gabar moroccan ah lagu guursan karo. si gaar ah shuruuddan waxaay u saameyneysaa ninka dibadda ka yimid ee soo doonta gabar reer morocco ah. waxaa baaraya dhakhtar markaasi u dhashay morocco amaba mid ka howlgala xarumaha caafimaadka ee dalkaas. marka arinta ma fududa. qorshaha guurka waa uu fashilmaya amaba ugu yaraan dib u dhac ayaa ku imaan kara haddii baaritaanka caafimaad uu muujiyo shaki caafimaad qab. si gaar ah cudurada markaasi galmada lagu kala qaadaa la leeyahay. waxaa kaloo ka mid ah saxiixa iyo ogolaanshiyaha xaaskaaga kale ama warqadda caddaynta doobnimada. tanaaba ugu daramaystiri haddii aad xaas leedahay waxaa lagaa rabaa in xaaskaaga aad ka keentid warqad inay kuu ogoshahay inaad xaas kala guursato. waxaa u malaynaa taas shuruudaha rag badan ay ku dhici doonaan inay ka mid tahay. marka ka hor inta aanan lagu ogolaan in gabar moroccan ah lagu siiyo waa inaad keentaa warqad caddaynaysa inaad horey usoo guursatay, ogolaashana aad haysato. haddii aad markaasi weli aadan guursanina sidoo kale ayadan inaad caddaysaa lagaa rabaa. sidoo kale halkaasi lagama doonayo mashaqayste iyo in ma aragtay qof aanan gabadha si wanaagsan u dhaqan karin. waa dhanka dhaqaalaha. marka arintan sidoo kale shuruudaha qeyb muhiim ah ka tahay. guurka haddii aan eegno saxnuun oo qiimaha ku bixi kara ma ahan sida ay markaasi u fududeysanayaan baraha bulshada maaragtay lagu arkay. laakiin waxaa markaasi la sheegayaa in uu ku kici karo lacag ku dhow. waxaa la leeyahay 20,000 oo dollar haddii uusan qarashkaaga ahayn aroos maaragtay gaabagaabay ah amaba lacag yar ay markaasi ku baxayso ma laga yeelayo. mararka qaar meherka oo keliya ayaa waxaa ku bixi kartaa laleeyahay lacag dhan 3,000 oo dollar. marka shuruudo badanaa la isku xirayaa. ma ahan sida ay u fududahay oo ay ragga halkaasi ugu sii qulqulayaan. waxaad moodaa in saxnuun oo laga dhigayo in gabdho jaban ay halkaasi joogaan
oo maaragtay saas darteed ay ragga halkaasi ugu qulqulayaan, laakiin shuruudahan iyo qaar kaloo badanaa maaragtay la isku xiraya oo ragga soomaalida ah ee halkaasi aadaya laga rabaa.